بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan waan meel kasta adduunka joogtaan walaalaha sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono qiso kamid ah qisooyinka Quraanka ee ku soo arooray. qisadani waxay khusaysaa Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam iyo labadii gabdhood ee uu u waraabiyay ariga. Nabi Muuse qisadiisa waad ka dheregsantihiin Quraankan aad iyo aad ayuu uga falanqoodaa ugana sheekeeyaa. runtiina qiso kastoo Quraanka ku soo aroorta waxaa noogu sugan cibro qaadasho iyo ku dayasho ayaa noogu sugan leanna Quraankan looma soo dejinin in mataqaana la iska akhriyo kaliya laakiin waxaa loo soo dejiyay in lagu amal falo lagu fakiro isla markaana wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegay aan cilmi ka qaadan. qisada Nabi Muuse iyo labadan gabdhood iyo Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam marka la tuujiyo runtii waxaad ka helaysaa wehel badan ayaa ka helaysaa farxad ayaa dareemaysaa waxaana kamid tahay qisooyinkan aad u jecelahay in badan maskaxda ku hayay maalmaha kamid ah inaan walaalaha la wadaago. Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam markii uu soo weynaaday uu noqday ilaa 40 meelahaas uu gaaray sida culimada sheegaan ayaa waxa dhacday nin xoog badan uu ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay cilmi iyo xikmad iyo xukmi uu siiyay waxa dhacday nin laba nin oo istagaalay inuu mar la kulmay midna uu ahaa reer bani Israa'iil midna uu ahaa qolada faraacinta ama qibtiyiinta la yiraahdo deetana wuxuu dilay adigu feer ku dhuftay isagoo u heelinayo kii ay mataqaana qaraabada hayeen ayuu feer wuxuu ku dhuftay ninkii cadawgooda ahaa isla markaana uu dhintay arintaas waxay sababtay in magaalada la isla wareego oo la garan waayo ninka dilay adigu maalmaha kadib waxa dhacday in isla kii uu maalinka u heeliyay nin kale isku dhagan uu mataqaana la kulmay deetana ay isku dayay inuu ka fujiyo kii kale kii baa baqay wuxuu yiri oo kashifay wuxuu yiri ma waxaad rabtaa inaad ii dishid sidaad shalay u dishay ninkii arintii waa la maqlay magaalada suuqa la galay fircawn iyo xukuumadiisa way fadhiisteen waxa go'aan lagu gaaray in Muuse la dilo الله سو قبته نن إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي رجولا نن وكتل مامي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نن ارتجع يا يمد وكسر ديري كوي هراء موسى يمد موسى حكوي صاحب ولغوت الشيء أنا ونكون نصيحين يا ولقد لي ماشي كعرب نبي موسى عليه الصلاة والسلام مقالده وكبحي خائفا يترقب أصوى عبصنا يا يكبحي markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala qisada u soconay qaybtan ayaa ka sheekeynaysa marka wuxuu u jihaystay uu aaday magaalo la yiraahdo Madyan magaalada Madyan waxay dhacdaa culimada soo sheegeen koonfurta Falastiin masarna fircawn wuxuu ka talinay masar koonfurta Falastiinna xukunkiisa muusan gaarsiisanayn marka Ilaahay wuxuu leeyahay ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلهي سبحانه وتعالى وحليه ولما توجه تلقاء مدين مركي وجهيستي تلقاء مدين مقالة مدين إنه آدي لنعاسي وفلسطين آدو أيوه يجري هذي ربي وحان كابري إن دي وهن ونسد جدك توسن نعم إلهي سبحانه وتعالى وكأقبل الدعاء دي نبي موسى وحلوها ونجدك مقالة وقدوا إلهي سبحانه وتعالى سيدو كلو حكدقي هاديا مهدية نبي هنوسن رسول بكدقي دad كان هنونية خير كان أشيغا آخرية أدون بالله سبحانه وتعالى هو ناجي واحد عدي مركو مقالة سأصوغ قلي وحكو يمد عيل أيو كو يمد عيل كاسو حولها لغا ورابسانيو دad حولا دقاتا ايا جوغي عيل كاسو كديسي وحولا كل مي لبا قبضود وحولهو دي أريغو دي هوريا وأنا أرجع ذلك كلا كل حجرين أنا وحبه وراب سنين أرنتي والله يا ابن موسى ننحك من ميران أيها وحكيري قال ما خطبكما ما حين قد عي هبله سير وحوي دي شرف له أي كان وأودن شيكتنا وحدهن حولها ما وراب سن كرنو إلى عدد كان كفلان أو عيل كتجان سببتنا وشيء وحير هذين أبهم وأضيوين من اللي هن مرفقنا رجع لا ترتمي كرا وماشوا حولها نورا بن كرا نبي موسى مركو يابي فسقى لهما أبو إله إليه عيلكي أيو تغي دقح بالا شيغا إني كو غوين وين دقح أيو كقاضي وورابيي حولي أيو سيي
waxba muusan weydiisanin wax kale kuma darsanin si ma ataqaanaa ilaahay dartiis iyo wajiga ilaahay ayuu caawiyay waana sida la rabo in ma taqaanaa dumarka loola dhaqmo oo ragga maanta badanaa jira gabdhaha markay caawiyaan waxay niyada ku hayaan wax kale ay ku hayaan laakiin nabi muuse ilaahay dartiis ayuu caawiyay marka xilliga xilli aad u kulul bay ahayd qoraxduna aad bay u kululayd waxa la yiri wuxuu aaday har ayuu aaday geed inuu hoos fadhiisto Allahu akbar thumma tawalla ila dhill harkii ayuu aaday sida aayadan laga fahmayo markii harkii aaday waxay culimada sheegaan gabdhihii oo maqlay ayuu wuxuu yiraahday ducadan rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir rabbi wixii khayr aad aniga ii soo dirtay oo aad ii soo dejisay waan u baahanahay cajiib شيخ اللي يراهدو عبد الرحمن السعدي تفسير كيسو وحو كل يهي وهذا السؤال منه بالحال سؤاشا ويديستي يعني إلهي ودعادا ويديستي وحالد وكسوغن يهي والسؤال بالحال أبلغ يعني سؤاشا قفك حالد أمركا كسوغن تهي وأدق أيا وحكا سامين بدن تهي من السؤال باللسان المقال إن هاد أفكا كويديستيد هذا حالة أتكو سوغانتا أيا أدق نبي موسى أساقو وحبا هيسنين أساقو قاجة هيسا أساقو رفاتسن أساقو كبير كدمادين أيا هادانا وحو قالي هول أدق أرقى أيو ورابيه أن قبليه مركا ويلابتين أبوهدو يابيو يعني قبليه دخسكو صلابتي حوليه سعبي مركا أي صلابتين ayaa waxa uu wareystay xugun maxaa dhacay oo u sheegeen waxay nin baan helay fiican oo sidaas saas markuu xiri ninka igu yaaro markii ilaahay wuxuu leeyahay fajaa'atu ihdahuma tamshi waxa timid midood oo socota oo ku socota ala istihya xishood ku socota culimadu waxay sheegaan inay mare isku soo daday inay iyadu xishoonaysa oo ma taqaanaa aad bay u timaaday marka waxay kula hadashay eray cajiib ah ميسن أورنكين وحتى يديه لأن كان إسرائيل حافظنا كوجينا أم الرع وحلقيها بأنه يعني شكك قال نبي مصور وجوده محكويرت هذا الكحكب بلاودي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبهن وحكويريا إن أبي بكبلاود أبهي وحكويريا سيء كاجا أبال مريو إن أدنو حولها أدنو ورابسي طبعا أسأل كم يسوقين إنه وحسيان إنه حوله كم يسوقين لكن marka ninka wanaagsan ee gabdhaha dhalay ayaa wuxuu jeclaystay inuu ninka karaameeyo markuu u yimid fahamma jaahu wa qassa alayhi alqasas wuxuu uga sheekay sababta magaaladii uga soo cararay dibka soo qabsaday iyo waxa soo dhaxmaray buu uga sheekay problemkiisa uu sheegtay Allahu akbar fiiri qala la takhaf wixira cabsan حابسن ودجي waxa la rabaa qofka markuu dhibaato ku sheegto kaala hadlo inaadan walwal ku sii abuurin inaad dejisida ayaa loo baahan yahay waana ilaahay subhanahu wa ta'ala tuleeyahay laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ka sheekeynta anbiyada iyo qisooyinka laga sheekeynayo waxa noogu sugan 10 ayaa noogu sugan kuwana qaadasho ayaa noogu sugan markuu wuxuu ku yiri la takhaf habsanin markaas wadan wuxuu yiri najawta min alqawm adh-dhalimin waad ka soo badbaaday qowmkii dhaalimiinta ahaa oo macnaha waxa uu fircawn halkan kama taliyo dib kuma soo gaarayo قبليه ميد كميد أهيد با waxay tiri aabaheed bay la hadashay oo waxay aragtay yani fursadan maanta taala in waxay tiri ya qalat ihdahuma ya aba tastajirhu abo ninka noo kiray oo xoolaha noo qaba noo raace markaas ay ku dartay in khayra man istajarta alqawiy alamin waxa la kiraysto ama la shaqaalaysiyo waxa ugu fiican alqawiy كان حوق له وأود له الأمين شقة كستولا قبتنا لبضاس كما بصو هردبا وحي كسو هرتا كوب بيجو أنت هاي وكو أود آمنات لبضاس هذه شقة كستلا جواي وحبا كما جيران مركا عبود عبا في عنبوها شكدي موسو إني أريد أن أقول حندونيا أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لبدي دان قبلود مت كمد أيان ربينا كو غوريو لكن هل شردي وإن حولها إراعدا سديت سنو وإن حولها إراعدا سديت سنو فإن أتممت 10 حتى قبل نقطتid oo nin raga noqotid oo 10 iga dhigtidna de ilaahay khayra ku sii wasida aan rabo oo wasi fiican marka wama uriidu an ashqa alayk marraba inaan ku dhibo inaan dib ku geysto marrabo oo waxaan rabaa inaan ku dhimriyo oo shaqo fudud ku dirsado satajiduni insha Allah min as-salihin haduu alla yiraahdana waxaad heli doontaa inaan qof fiican noqdo yani uu shaqaalaysiinaya
si fiican ayuu la hadlayaa, si tartiib ayuu la hadlayaa, si niyad ayuu la hadlayaa. qof walbana waxa la rabaa dadka shaqaalihiisa iyo dadku la dhaqmaya iyo dadka guriga u jooga iyo gabdhaha guriyaha ka shaqeeya in si wanaagsan loola dhaqmo. walaqad kaana fi qasasihim cibratu liulil albaab way ku dayashay noogu sugan halkaas. nabi muuse alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri dalika bayni wa baynak, kaas arintaas ayano balan ah aniga iyo adiga balantaas ay naga dhaxaysa. أيما الأجلين قضيت ما سيديد كون راعي وسيدا دي واجب كتاي وأنا كوبلاني ولا انتاس وقسم سيديد موقت فلا عدوان علي هدان سيديد كون راعو والله بدا دنبا أن قوان كوغار إنا اسكتوغو دي واحد دباتا ملهان هدي أن طبعا كودا ميستانا دباتا ملهان والله على ما نقول وكيل وحانو لين هينا وحا وكيل كا الله سبحانه وتعالى. قصة ولا لا قصة عجيبة وحين نتوسينيسا أريما آدي آدو فربضان كو وحين نتوسينيسا إن داد كون حريسانو وداد تباري رهدا أرقنو إن عاونو هدي أن أرقنو دمر ولا لهنا أو دباتيسان أو أنا أود لهين إن أنا يكن قرب سينو أنه إله درتي سو عاونينو سيدا وكلا وحين نتوسينيسا قفك إنو نقضو قف أود له وآمن أهل بدا صفان ولا بصفو آدي آدو في عن سيدا وكلا وحين نتوسينيسا إن إله سبحانه وتعالى برينو وحانا حسيد مدن مرول بعد قرآن كأرتيد أنبياء رسوشة إلهي بريان ربي بيكو بريان مركا قفك مركو إلهي بريو إنه ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا لا تزغ قلوبنا قرآن كفير الدعاء ده قرآن كوسا أرتي بدنا ربنا يا ربي بيكو بالله وتا مركا وحي إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنه دنبنا دافو إنه دنب والدكين دافو إنه إله سبحانه وتعالى نون حرسته إنه إله سبحانه وتعالى قرآن كان وانفعه ولكن أسرع عياذ دين له ولا لك شرفت له مرور البوحة حسوسناتان إن خير كسيفة فسان إن سوق قلب فعناتان إن دسع فسان إن معرتي قرآن كأد وهلا النقطان أو قصوين كقرآن كأد آخر ستان وآد دقي ستان إله سبحانه وتعالى قرآن كان وانفعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.